bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan daawadayaal idilkiin meel walba joogtaan iyo subal baa noo maqlaysaan waxaad kusoo dhawaataa muuqaal cusub aan kaga hadli doono horyaalka Somali Premier League oo galabta laga ciyaari doono mid kamid ah kulamada ugu xiisaha badan waana kulanka loo magac bixiyay kulanka caasimadda ama capital ama derby capital ama derby city ayaana kulanka loogu magacaabaa kooxaha Muqdisho City Club iyo Elman ayaa galabta ku coltami doona garoonka dhaca degmada Cabdicasiis Engineer Yariso Stadium ciyaar qaybka tartanka horyaalka Somali Premier League waana kulankii 15aad ee laga ciyaarayo fasal ciyaareedka 2019-2020 kulankan ayaa mid aad u xiiso badan waana ciyaarta loo magac bixiyay derby capital ama kulanka caasimadda labadani kooxood waxay yihiin kuwo ku xisaabtan markay timaado kubadda cagta tani waa ciyaar mideynaysa laba taageerayaal ee labada kooxood maadaama garoomada lagu arko markay dheelayaan labadani kooxood boorar ay wataan taageerayaasha kala taabacsan Elman iyo MCC iyo sabaxan aan xad lahayn waana sababta loo yiri ama loo magac bixiyay kulanka ugu weyn horyaalka Somali Premier League iyo kulanka caasimadda labadii kulan ugu dambeysay isku arkaan horyaalkii la soo dhaafay waxay ku kala bixeen barbardhac ciyaarahooda ayna waxay ku dhamaadeen mid ay garbasiman ku dhamaad ama garbasiman ay ku kala baxaan kulan wuxuu ku dhamaaday 1 gool iyo 1 gool hal kulan kana 2 gool iyo 2 gool taasoo ka dhigan in ay kala qaateen dhibcaha sidoo kale sanadkii la soo dhaafay waxay isku arkeen tartanka xiisaha badan Kooba General Daud heerkiisa gurubyada waxaana xilligaas 2 gool iyo 1 gool ku adkaatay wiilasha MCC Muqdisho City Club Daadri Amin Ali Daada ayaa ka hor imaan doona kooxdiisa hore Elman isagoo imanka macalinka labaad u ah kooxda MCC taasoo ciyaarta xiiso badan u sii yeelaysa kooxda Muqdisho City Club kulankan waxay dhaawac ugu maqnaan doona xidigeeda lagu magacaabo Xasan Santos kaasoo ku seegay dhaawac jilibka ah sidoo kalena ka maqnaan doona ilaa muddo 1 bilood garoomada ayuu ka maqnaan doona ciyaaryahanka qadka dhexe kooxda kubadda cagta MCC ee Xasan Santos Muqdisho City Club waxaa sidoo kale ka maqnaan doona goolahayeeda ee Saciid Yamine kaasoo ku soo dhaawacmay waajibaadka xulka qaranka Soomaaliya wuxuu isagana garoomada muddo ayuu ka maqnaan doonaa oo gaarsiisay ilaa 4 bilood wiilasha lagu naanayso jaalayaasha Elman kulan ciyaareedkan waxay weey doona xidigooda daafac ugu ciyaaray Bilic Cilmi Weheliye kaasoo dhaawac ciyaarta ku seegi doona kooxda kubadda cagta Elman kulanka ugu dambeeyay horyaalka waxay 4 gool iyo 1 gool ugu soo adkaatay naadiga Jazeera Sports Club halka naadiga MCC-na ciyaartii ugu dambeysay barbadhac eber la soo gashay naadiga Codtamaan Horseed ciyaarta waxay dhici doontaa 9 saac bar horyaalka Somali Premier League ayayna qayb ka tahay Elman iyo Muqdisho City Club ayayna ciyaartan dhexmari doontaa waana kulanka loo magac bixiyay derby capital ama kulanka caasimadda haddaba haddii aad daawanayso muuqaalkan aragtidaada hoos inoo reeb subscribe inoo saar channelka nagu dhiirigeli like iyo share marwaba halkan kala soco natiijooyinka horyaalka si la mid ah waxyaabaha laga diiwaan geliyay ka hor ciyaarta